السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. soo dhawaada asxaabta qiimaha badan. maanta muuqaalkeena waxaynu ku soo qaadan doonaa dhimashada odayga maalmahanba social media haystay, kaasoo ciwaankiisu yahay ninka ugu wasakhda badan dunida. inta ayna muuqeena u gadagelin, haddii aad ku cusub tahay kanaalkeena ku soo beer subscribe-tana noo saar, waa mahadsan tahay. waxaa laga yaabaa in aad ninkan marar badan aragtay iyadoo la soo fastakareynayo amase warbaahinta caalamka ayaa si weyn uga hadashay. waxa uuna kaalinta koobaad ugu jiraa ninka adduunka ugu wasakhda badan, ku dhowaad ma uusan meedhan 60 sano. waxa uu geeriyooday maalmihii la soo dhaafay, magaciisuna waa Camu Xaaji. waxa uu ninkani sheegay in uusan meedhan 60 sano ku dhowaad, jirkiisa uusan wax biyo taabsiin, isagoo 94 jirna waa uu geeriyooday. noloshii kharaabka iyo khalkhalka ahayd ee aadka u liitay ayuuna ka tegay. bal dhagaystow aan ku weydiiyey, bil haddii aadan meedhan see dareemi lahayd? ninkani 64 sano ayuusan wax biyaa jirkiisa taabsiin. waxaa laga yaabaa sabab fara badan inay ku khasbayaan in uusan meedhan, laakiinse dad badan oo u soo bandhigay waa uu ka diiday. waxa uuna sheegay biyaha in laga qaado xanuuno aad u halis badan. cid ku khasabtay ma jirta inuusan meedhan ama sidiin fartay inuu iska daayo biyaha. haddii aad maqli jirta mameedhe, waa kan aan qisadiisa kuu warinayno. ninkani waxa uu ku noolaa dalka Iiraan, tuulada ku taala gobolka Faris. halkaas ayuuna isaga jiray qol yar oo dhagax ka samaysan oo ehelkiisa ay u sameeyeen. waa laga kala cararay maxaa yeelay sabab loola sii joogaa meesha maba taalo. qof aana meedhanaynin cidda kaa dhowaanaysa ama jeclaanaysa ayay noqonaysaa. ninkan ayaa ka duwanaa dhammaan bani'aadamka, waxa uuna u dhaqmayay si la yaab leh. dhanka cuntada haddii aynu ka eegno nidaamka wax u cun jiray, waxay ahayd inuu raadiyo cunto aad u wasakh badan. waxa uuna ka dheeraanayay cunto kasta oo bani'aadamku cunaan. waxa uu raadsanayay bakhtiga xayawaanada, isaga oo markaana lahaa tuumbo aad u dheer. tuumbadaas ayuu ku guran jiray saxarada xayawaanada, isla markaana sida sigaarka ayuu u nuugi jiray. sigaarka 5 midh ayuu hal mar ka tuuri jiray. ninkani waxa uu isaga noolaa meel cidlo ah, isaga oo guriga ayarsiga jiri jiray. waxaaba kaaga sii daran, god yar uu ku dhex qotay meesha ayuu aad u jeclaa. isla wakhtigaasna marka uu seexanayo habeenkii, waaba ku raaxaysan jiray meeshaas. marka uu muraayadiis ku fiiriyana, araggiisa ayuu aad ugu farxi jiray. jirkiisu waxa uu u ekaaday carrada oo kale, aad ayuuna isku beddelay. ninkani waxyaabaha la yaab kale uu leeyahay waxaa ka mid ah garhka iyo timaha ayuu aad uga caban jiray. isla markaasna halka uu ka meli lahaa uu nadiifin lahaa, waxa uu samayn jiray dab intuu soo qaata ayuu gubi jiray timihiisa iyo garhkiisa. annaga u xaragnay ninkii noolow gehlalan waad arki. caadooyinka la yaab kale uu leeyahay ninkani waxaa ka mid ah inuu cadceedda isku dhigo wakhtiga ay aadka u kulushahay. ninkan noloshiisa dunida ayaa ka yaabtay. 2013 ayaa waxaa laga sameeyey film loogu magac daray nolosha ashqaraarka leh uu ku nool yahay Camu Xaaji. ninkani waxa uu noloshiisa ku dhammaystay iska habrilnimo, maxaa yeelay gabar jeclaanaysaa ma jirto nin aan qubaysanaynin. Camu Xaaji waxa uu ku qanacsanaa noloshiisa, isagoo uu arkay inay tahay nolosha ugu wanaagsan oo qof bani'aadam uu ku noolaado. waxa uu sheegay inuu ka nolol wanaagsan yahay dad dabaqyo daara dhaadheer gala. dad badan ayaa isku dayay inay u qubeeyaan, laakiinse waa uu ka baxsaday. xasaasiyad ayuu ka qabaa meedhiga, saabuunta iyo shaamboogana waa uu ka cararaa meesha uu ku arko. si kastay ahaataba, ninkani waxa uu aaminsan yahay nadaafaddu inay tahay wax aad u wanaagsan. cidiyaha waa uu iska jaraa, timaha iyo garhku markay ku baxaan waa uu iska gubaa. haddii aad rabto inaad biyo siiso, waa inaad cab ku tiraahdaa, laakiinse iska jiraa ku dhihin ku meedho, maxaa yeelay meedhitaanka sas ayuu ka qabaa. sida la sheegay, ninkan dhibaatadiisu waxay ka soo bilaabantay yaraantiisii, maxaa yeelay waxa uu dhahay ma aanan helin daryeel carruurnimo markii aan yaraa. carruurtu marka ay yaryar tahay biyaha aad ayay uga cabsadaan, isaguna halkaas ayuu ka soo bilaabay cabsida biyaha uu ka qabo. waxa uuna sheegayaa haddii biyaha ku meedho inuu dhimanayo. Camu Xaaji noloshiisu waxay soo gabagabowday maalmihii la soo dhaafay, isagoo 94 jir ayuu geeriyooday. waxa uu ka galay buugga adduunka ninka ugu wasakhda badan.